maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedeysane gaashaanle sare xooga Cabdinaasir Xoosh Maxamed 54 jir ah ina Faadumo Cabdullaahi Maxamuud ku dhashay Xamar oo ahaa taliyaha raxanta doomaha ee ciidanka badda kaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dembiga ah dil bareer ah kadib markii uu xabad madaxa uga dhuftay marxuum Ekisareeye Guuto Saciid Aadan Yuusuf oo ahaa abaanduulihii ciidanka badda xooga dalka Soomaaliyeed dembigaas oo ka dhacay degmada Xamar Jajab gudaha dekedda Muqdisho 18 bishii koowaad 2018 dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeeryaalaha ciidamada qalabka sida oo ku xusneed aayadda 178 suuratul Baqara iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysane gaashaanle sare xooga Cabdinaasir Xoosh Maxamed uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka hortiisa kuna cadeeyay in xabad uu ka riday bastooladii uu watay ay wajiga kaga dhacday marxuum Saciid Aadan Yuusuf Saciid Mariino maxkamaddu markii ay dhageysatay markaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in gaashaanle sare xooga Cabdinaasir Xoosh Maxamed iyo marxuumka uu dhex maray muran kadibna uu eedeysanuhu xabad madaxa kaga dhuftay marxuumka maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta ah iyo cadeymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray markaatiyaasha qoraalka eedeysanaha looga qoray garsoorka hortiisa bistooladii lagu dilay marxuumka koofiyadii uu watay marxuumka oo ay ka muuqato sida ay xabaddu ugu dhacday madaxiisa warqadda cadeynta dhimashada marxuumka iyo warbixinta ay soo gudbiyeen waaxda baarista cilmiyeysan oo la xiriirtay habka uu dilku u dhacay maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeeraalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay eedeysanaha sidaa darteed maxkamadda waxa u cadaatay in gaashaanle sare Cabdinaasir Xoosh Maxamed uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay maxkamadduna waxay ku riday xukunka ah koow waxay ka xayuubisay darajadii uu sitay oo ahayd gaashaanle sare labo waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Ekisareeye Guuto Saciid Aadan Yuusuf Saciid Mariino cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan wabillahi tawfiiq